بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wacan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka ee Risala TV. qodobada caawa ku daawan doontaan waxaa ka mid noqon doona dawladda Soomaaliya oo sheegtay in maxkamadda ICJ ay diiday in dib loo dhigo dacwadda badda ee Soomaaliya iyo Kenya ka dhaxaysa. Faahfaahin ayaanu idinkaga haynaa qodobadeena kalena waxaa qayb ka noqon doona beesha caalamka oo ka digtay in uu baaqdo shirka uu cilaamiyay madaxweynaha waqtigiisu idlaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. maamulka gobolka Hiiraan waxa ay bilaabeen qorshe lagaga hortagayo fatahaadaha uu sameynayo webiga Shabeelle ee xilliyada roobaadka ay dadku dhibaato kala kulmaan. waxaan idinkuga haynaa qasaare ka dhashay qarax maanta ka dhacay magaalada Muqdisho iyo laamaha amniga dawladda Soomaaliya oo faahfaahin ka bixiyay qodobadaasi iyo waxaad kala ku daawan doontaan dawladda Soomaaliya oo soo bandhigtay dadka uu ku dhacay COVID-19 kiisaskiisa cusub oo ay sheegtay dawladdu in ay sii kordhayaan. markale habeen wanaagsan saaxiibayaal intaasi qodobadeena ugu waaweyn ayay ahaayeen waa 13 bisha labaad ee February sanadkan waa 2021 Maxamed Cabdiraxmaan ayaan ahay dhanka farsamada ee kamerada waa Shukri Ado Faarax markaana ku bilaawna dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in maxkamadda ICJ ay diiday in dib loo dhigo dacwadda badda ee Soomaaliya iyo Kenya ka dhaxaysa sida lagu sheegay bayaan ay soo saartay dawladda Soomaaliya. Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guleed Qadar oo maanta hadlay ayaa sheegay in ay dawladda Soomaaliya ay diiday in dib loo dhigo dacwadda badda ee kala dhaxaysa Kenya. Mahdi Maxamed Guleed ayaa sheegay in maxkamadda caalamiga ICJ ay laashay dalabkii Kenya ee ahaa in dib loo dhigo dacwadda badda ee kala dhaxaysa Soomaaliya. Mahdi Guleed oo shir jiraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in ay shaacisay ICJ inaysan aqbalin in dambe dacwadda badda dib loo dhigo sidaas daraadeedna ay dhinacyada ay u diyaar garoobaan in ay dood ka galaan arintaasi. waxa uu hadalkiisa intaasi uu ku sii daray in dawladda Soomaaliya ay dhinaceeda ay u diyaar garowday ka qaybgalka qaadista dacwadda badda haddii looga qaybgalayo in aalada Zoom-ka ee dhinaca internetka ama xubno loo dirayo maxkamadda ICJ si ay uga qayb qaataan dacwadda badda ee kala dhaxaysa dalka Kenya. Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guleed بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. waxaan rabaa inaan munaasabada uga faa'iideysto in aan shacweynaha Soomaaliyeed ku wargeliyo in maxkamadda cadaaladda adduunka ay go'aan kama dambaysta shalay galab ka gaadhay dhageysiga dacwadii badda ee u dhaxaysay Soomaaliya iyo Kenya. dacwadaas oo gudbinihii qoraalaha iyo dokumentiyada hore ay u dhamaatay 2018 December waxa ay muddaba u madlanayd in la dhageysto doodaha afeed oo luqadda af Ingiriisiga lagu yiraahdo oral hearing in dhinacyadu maxkamadda hordeeda ay ka soo jeediyaan. maxkamaddu go'aan waxa ay shalay ku gaadhay dhageysigii dacwadda oo horena ay u mudeysay hase yeeshee Kenya ay codsatay in dib loo dhigo inaan la aqbalahaynin in dib loo dhigo mar dambe sidaa daraadeed dhinacyadu ay u soo diyaar garoobaan 15 ilaa 19 bisha March ee inagu soo aadan ama Maarso dadka qaarba sida uu yaqaan 2021 in la dhageysto dhinacyada habka virtualka ama muuqaalka fogaal aragga ah iyo hadday suurto gasho habka dhowr qof in ay ka soo qayb gali karaan dhinacyada. almuhiim dacwadda dhageysigeedii insha Allah 15 ilaa 19 Maarso oo sanadkan 2021 ayaa ay hirgelaysaa. maxkamadduna go'aamisay naguna warkelisay dhinacyada dhammaantood. waxaan shacweynaha Soomaaliyeed u sheegayaa anagoo ku kalsoon Ilaahay ku kalsoon taageerada iyo garab istaaga mar walba dawladda Soomaaliya la barbar taagan tihiin in aynu ku metelno danta ummadda Soomaaliyeed xaq iyo cadaaladna
ku helno doodeenna iyo dacwadeenna kuna kalsoon dhexdhexaadnimada maxkamadda cadaaladda adduunka in aad noo soo ducaysaan in si xaq ah ay noogu dhammaato dacwaddaasi. waxaan u hambalyaynaa madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo oo 4 sannadood oo run ahaantii uu xilka hayay habeen iyo dharaar heegan u ahaa, la socday, taageero dhinac walba ahna niyad iyo moral iyo aqoon iyo afkaar iyo talo wax kasta oo uu ku biirin karo la berber taagnaa khubarada sharciga iyo mas'uuliyiinta Soomaaliyeed ee gacanta dacwadan ku haya. waxaan leeyahay dhammaanteen haddaan Soomaalinahay guul baan inoo rajaynayaa, waanu ku hanweynahay insha Allah in cadaalad xaq ah ay ku dhamaan doonto dacwadani. waa mahadsantihiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. markaan haddii aan ku soo laabano magaalada muqdisho maanta waxaa ka dhacay qaraxa, sidoo kalena qaraxaasi waxaa la sheegayaa inay ka dhasheen khasaaro iyadoo laamaha amniga dowladda federaalk Soomaaliya ay faahfaahin ay ka bixiyeen. qaraxan waxa uu ka dhacay maanta waxaa loo soo adeegsaday gaari loo yaqaano noohada, waxaana uu ka dhacay bar kontarool oo lagu hubiyay gaadiidka soo gala magaalada muqdisho ama gaadiidka soo gala ee dhinaca madaxtooyada ee Soomaaliya una dhow isgoyska sayidka ee magaalada muqdisho. goobjoogayaal warbaahinta kula hadlay goobta ayaa sheegay in gaarigu uu si xawliyo ku socday, ciidamada dowladuna ay ku celiyeen rasaas gaarigaasi, laakiin inta rasaastu ay dhacaysay waxaa la sheegay in dad goobta ka agdhowaa ay firxad galeen oo ay goobta iskaga carareen. waxaa goobtaasi ku baakinay bajaajyo badan iyo sidoo kale baabuur badan oo soo galeysay xarunta madaxtooyada ee dowladda Soomaaliya amaba dhankaasi u soo socdaalay. waxaa jira in halkaasi markii uu gaarigu soo dhawaaday in uu goobta ku qarxay iyadoo oo qofkii naftihaliga halkaasi ku dhintay, sidoo kale qof kale oo dhaawac ka soo gaaray oo la sheegay in uu goobta markaasi marayay. dhanka kalena dowladda federaalk Soomaaliya qaybteeda laamaha amniga ayaa sheegtay in ay qaraxaasi aysan waxyeelo sidaas buuran geysan, waxaana ay sheegtay dowladda Soomaaliya in qaraxaasi ay ku dhaawacmeen 7 ruux. waxaa kaloo ay sheegtay dowladda Soomaaliya in 8 gaadiidka nooca raaxada ah iyo sidoo kale 9 mooto bajaaj uu khasaare ka soo gaaray qaraxa, iyadoo ay dowladdu ay sheegtay in uu ruuxi naftihaligaha halkaasi ku qurbaxay. sidoo kale goobtaasi ayaa dadkii laga joojiyay in ay socdaal ay ku maraan, walow goor dambe la fasaxay in isku socodka halkaasi la marsiin karo. wadada ayaa ahayd meel jaam ah oo badanaa laga soo galo xarunta madaxtooyada ee dowladda Soomaaliya. markaan haddii aanu eegno wararkeena kale ee caawa, beesha caalamka ayaa waxa ay dalbatay ama baaq u dirtay in shirka uu iclaamiyay madaxweynaha waqtigiisa uu idlaaday in uu baaqdo digniin adagna ka soo saartay. xubnaha beesha caalamka ee taageerada siyaasadda Soomaaliya ayaa ka hadlay arrimaha doorashada dalka iyo shirka la filayo 15 bishan inuu ka furmo magaalada muqdisho, kaasi oo dhaxaya madaxda dowladda iyo kuwa dowlad goboleedyada, iyadoo gobolka Banaadirne uu qayb ka yahay. qoraal wadajir ah oo ay soo saareen beesha caalamka ayaa waxaa lagu taageeray shirka uu iclaamiyay madaxweynaha muddaxileedkiisa oo idlaaday Maxamed Cabdulaahi Farmaajo si loo dhameystiro shirka doorashooyinka ee magaalada muqdisho. sidoo kale waxay sheegeen inaysan aqbalaynin in cudurdaar laga dhigto inuu shirku uu ku baaqdo khilaaf dhinacyada iyo isku tuurtuur dhanka ah meesha lagu qabanayo ama goobta loo caymay, iyadoo dowladdu sheegtay inay ku adkeysanayso in lagu qabto magaalada Garowe halka maamulada Puntland iyo Jubbaland maamulka iyo waxaa kaloo jira gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo iyo beesha iyo gudoomiyaasha midowga murashaxiinta ay sheegeen in loo baahan yahay in shirkaas uu ka dhaco magaalada muqdisho. waxaanu sii fiirin doonaa dowladda Soomaaliya waxa ay sheegtay soona bandhigtay faahfaahin ku saabsan COVID-19 oo kiisaskiisu ay dalka ku sii badanayaan. wasiiradda caafimaadka dowladda federaalk Soomaaliya Fawziye Abikar Nuur ayaa sheegtay in ay dowladda Soomaaliya ay markaan diiwaan gelisay dad aad u badan kuwaasi oo COVID-19 uu ku dhacay. wasiiradda caafimaadka Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in xaaladihii ugu dambeeyay ee COVID-19 ay tahay kuwa si labaad kacleynaya, iyadoo sheegtay in 24 saac la soo dhaafay la diiwaan geliyay 28 ruux oo ku sugan muqdisho iyo Hirshabelle, isla markaasina waxay sare u sii kacayaan kiisaska cudurka ee corona. Dr. Fawziye Abikar Nuur, wasiirka caafimaadka dowladda Soomaaliya, ayaa sheegtay in 12 bishan 2021
iyo ilaa haatan uu sii kacayo COVID-19 iyadoo sheegtay in dalka laga diiwaan geliyay 628 COVID-19 oo xanuunka uu soo ritay waxaana laga helay 62 ku sugan Banaadir kuwaasi oo kala ah 36 lab ah iyo sidoo kale 26 dhadiga halka ay u geeriyoodeen 2 ruux sida ay sheegtay dowladda Soomaaliya. wasiirada ayaa tirada guud ee laga helay xanuunka ku sheegtay 5,075 tirada guud ee bogsatay halka ay sheegtay 3,730 halkaasi dhimashadu waxaa lagu sheegay dowladda Soomaaliya inay dhinteen 146 qof. wasaaradda caafimaadka ayaa ugu dambeyntii digniin caafimaad u dirtay ummadda Soomaaliyeed si ay uga digtoonaadaan halista xanuunka oo mar kale soo laba kaclaysa. waayahay gudoomiyaha maxkamadda sare ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa digniin u diray laamaha amniga iyo maxkamadaha garsoorka ee dalka oo dad badan oo halkaasi ku xayiran yihiin ama halkaas dad ku sugan yihiin kuwaasi oo suganaya maxkamadda isagoo oo sheegay in laga baahan yahay in ay sida ugu dhaqsiyaha badan dadkaasi maxkamaddu soo jeegaan. gudoomiyaha maxkamadda sare ee dowladda Soomaaliya ee Baashe Yuusuf Axmed ayaa digniin u diray hay'adaha dowladda laamaha amniga iyo dowladaha hoose ee dalka taasi oo ciqaab ka dhalan doonto fulin la'aanta xukuumada ka soo baxa maxkamadda dalka haddii aysan ku dhaqaaqin. Waxaan faraynaa go'aan kastoo maxkamad ka soo baxa hay'adda wuxuu ku yahay waajib in ay fuliso. ka gaabintiisana waxa ka dhalanaya faldambiyeedkaana waxa ka dhalanaya ciqaab xarig iyo ganax labadaba noqon kara ama isku jiri kara. marka waxaan faraynaa in laga digtoonaado in loo hogaansami waayo ama la fulin waayo awaamiirta go'aamada iyo xukuumada ka soo baxaya garsoorka dalka. haddii inta loo hogaansami yani qofkaas wuxuu ku xisaabtamayaa inuu yahay qof isagu sharciga ka sareeya mana jiro qof sharciga ka sareeya. cid labaad aan rabnay inaan digniinta u dirnaa waxa weeye waa ciidamada booliska dalka. ciidamada booliska dalka oo loo yaqaano hay'adaha sharci fulinta waajibaadkoodu yahay inay fuliyaan shuruucda dalka. waxay fulinayaan ay koow ka tahay awaamiirta garsoorka ka soo baxaysa darajo kasta oo leeyahay maxkamad degmo iyo maxkamadda ugu sareysa. waxa waajib ku ah inay si dhab ah ugu hoggaansamaan awaamiirtaas garsoorka ka soo baxaysa. hoggaansan la'aanteeda iyadana waxaan rabaa inaan xusuusiyo iyadoo booliska laga rabo marka hore inay sharci yaqaan yihiin inay ogaadaan in waxa kasta amar kasta oo garsoore maxkamadeed gudoomiye oo la diido in iyadana faldambiyeed ka dhalanayso isla markaana in lagula xisaabtami doono taliye saldhigoo kasta ama sarkaal kasta ama askari kasta oo booliska ugu hoggaansami waaya. waxa iska dhacda qof maxbuusa oo la xidhay oo maxkamad ay xidhay in xabsiga laga sii daayay iyadoo oo aan amar maxkamadeed la helin. waxa dhacda in waaran maxkamad jirtay loogu hoggaansami waayo qofkii la soo xiri waayo. waxa dhacdo qof la xidhay saacadihii loogu talagalay maxkamad horteeda in lagu keenay in lagu keeni waayo. waxyaabahaas oo dhan waa ka gaabin waajibaad saaran sarkaalka booliska. ka gaabinteedana waxaan faraynaa insha Allah taala in lagu xisaabtamo doono garsoorkana waxaan faraynaa in iyagoo sharciga isticmaalayo adeegsanaya awoodda sharcigu siiyay kula xisaabtamaan cid kasta inay sharciga oo kaliya ay u hoggaansanto. waxaan iyagana rabaa inaan digniin halkan uga diro dowladaha hoose. burburkii kadib dhibaatooyinka waaweyn ee dalkan ka dhacay waxa kamid ah inuu dhulkii noqday waxa ugu weyn ee ummaddu isku haysato. markii uu ka baxay gacantii dowladda ee uu galay gacmihii shacabka inuu noqday wax laga ganacsado oo khilaafaadka ugu badan ee maxkamadaha yimaadiye dacwadaha ugu waaweyn ee maxkamadaha yimaada ee mashquuliyeen yihiin. waxa xaqiiqo noqotay iyaduna dacwadahaas inay cuslaadaan oo la dhameyn kari waayo oo dhibaatadoodu badato inay qayb ka noqdaan dowladaha hoose ee dalku. waxa dhacday nashqad la dul saaran meelo badan. waxa dhacday marka warbixin la weydiiyo warbixin aan ku habboonayn in la soo bixiyo. waxa kamid ah sarkaalku inuu inta uu doono iska haysto markay maxkamad warbixin weydiiso sanad hadduu doono iska haysto inuu soo jawaabo. waxaan iyagana faraynaa garsoorkana u sheegaynaa cidda lagu helo wax khaldan oo ama nashqad la dul saaray ha noqoto ama arrin kale oo aan waafaqsanayn sharciga ama ka gaabin waajibka ka saaran gudashada xilkiisa in iyagana lagula xisaabtami doono.
gobolka Hiiraan haddii aanu aadno maamulka gobolka Hiiraan ayaa waxa ay bilaabeen qorshe lagaga hortagayo fatahaadaha uu sameeyo webiga Shabeelle oo mar walba romarkooda halkaasi dad badan ay ku barakacaan dad badan ay waxyeello ka soo gaartay lixaad maamulka gobolka Hiiraan gudoomiyaheeda Ali Jeyte Cismaan ay wehlinayaan xubno ka tirsan mas'uuliyiinta rugta fatahaadaha ee Beledweyne guddiga fatahaadaha ee Beledweyne aan iraahday ayaa waxay maanta booqasho ay ku tageen kaliga Waraaboole oo ay ka socdaan howlo lagu yareynayo fatahaadaha webiga Shabeelle ujeedka kormeerka ayaa waxa uu ahaa sidii loo dardargelin lahaa howlaha lagaga hortagayo fatahaadaha webiga Shabeelle ee ku soo laalaabtay magaalada Beledweyne gudoomiyaha guddiga fatahaadaha Beledweyne Xaaji Cismaan Dhagaxow ayaa sheegay in ay socoto qodista kaliga Waraaboole oo ku yaala galbeedka xaafadda Lamagalaay ee magaalada Beledweyne halkaasi oo ay ka sameynayaan in ay balyareeyaan in dhibaato kale ay ka timaado haddii uu gugu curto ama roob kale ay ka curtaan wadanka Ethiopia halkaasi oo webigu ka keeno biyaha ugu badan ee gobolka Barakaciya ama magaalada Beledweyne dadku ay kaga barakacaan waayahay daawadayaal qodobkaasi ayaa ugu dambeeyay barnaamijka dhacdooyinka Risala TV waxaan ahay Maxamed Cabdiraxmaan oo idin la socodsiinaya dhanka farsamaduna waxa ay ahayd iyo kaamirada Shukri Cadow Faarax waa inoo kulan dambe nabadgelyo